السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربا إنان إذين دول مرة وحي سوكر لأفر لواتن كساع وقدم بي كسابسن كيسيسكا كورونا فيروس ودن كين أفر لواتن كساع وقدم بي سوحا لباري لابا بقول سيديتن إيا ساقال قف وحا عذر كاللغة هلي صدن إيا ساقال قف صدن إيا ساقال قف شن إلا واتن وحاواي رق ددقنا وحاوين كان وافر طبعا صدن iyo sagaalkaas qof ee laga helay cudurka coronavirus 24 saac ugu dambeeyay meelaha ay kala joogan iyo tirada hadaan sheegno gobolka Banaadir waxa ka jooga 14 Puntland waxa ka jooga 12 Somaliland waxa ka jooga 8 Jubbaland waxa ka jooga 3 Koonfur Galbeedna waxa ka jooga 2 da'da dadka ee laga helay inta ay u dhaxayso waxa ka yar da'dooda boqolkiiba 8 labaatan sano ay ka yar yihiin 20 ilaa 39 sano da'da inta u dhaxaysa waxa laga helay 61 40 ilaa 59 inta u dhaxaysana waxa laga helay 26 60 sano intii ka weyn waxa laga helay boqolkiiba 5 tirada guud ee dadka laga helay wadankeena wuxuu gaarayaa 2642 tirada geerida 24 saacadood ugu dambeysay waxa dhimasho ama jirin dhimashadana waxay taagan tahay 88 tirada bogsatay maanta waxa waay 45 tirada guud ee bogsatayna waxa waay guud ahaan 622 qof ilaahay mar walba waa ku duceysanayna cudurkan iyo cudur oo dhan aafadiis inuu naga haayo waxa loo baahan yahay mar walba in laga shaqeeyo sidii loo xakameyn lahaa cudurkan si uu wadanka ma aragtay uga yaraado ugana suulo hadii alla idmo waxay u baahan tahay in laga taxadaro nadaafada in la badiyo oo qofka gacmihiisa uu dhaqo saabuun ku dhaqo iyo wixii kale loogu talagalay jeermiska dila in mar walba uu taxadarnaado qofka markuu banaanka u baxay iyo mar walba uu guriga joogo iska ilaaliyo meelaha buuqa ee dadka badan xiriiriga badan in qofka hadii calaamadaha uu qabo ama uu iska dareemo in calaamadaha qaarkood uu leeyahay inuu wacdo nambarada loogu talagalay lagu siinayo talada iyo ma aragtay tusaaleynta sidoo uu la xiriiri lahaa dhaqaatiirta meelaha goobaha caafimaadka uu ka raadsan lahaa in si gaar ah il gaar ah lagu haayo dadka cudurrada raaga qaba si looga ilaaliyo xanuunkaas inuu ku dhaco waa dadka u nugul in xanuunka uu soo ridoodo sidoo kaleeto qofka mar allaala markuu banaanka u baxayo waxa aad iyo aad loogu waaniyaa in qofka afka uu xirto hadii uu haysto waa la qaybiyaa meelo badan waana la qaybin doonaa hadii alla idmo qofka markaas cudurka uu taxadaro meelo buuq markuu galayo baabuurta ciriiriga markuu qaraacayo in lagu dadaalo si kasto loogu dadaali karo in cudurkan laga xakameeyo bulshada dhalinyarada oo ah numberka ugu badan ee cudurka uu ku dhaco waxaan ku waaninaynaa inay taxadaraan inay u naxariistaan dadka ay la nool yihiin qaraabadooda saaxiibadooda iyo bulshada intooda kale waajibna wada saaran waa kulli inaan ka wada shaqeyno sida cudurkan looga hortagi lahaa waa cudur halistiisa markii uu qofka soo ridooda dadka nugul aad iyo aad ma aragtay u dhibaateeya u dhintaan marka waa aan wada dadaalno hadii alla idmo sidii cudurkan loo xakameyn lahaa ilaahayna waxaan ka baryeynaa inuu shartiisa iyo dhibaatadiisa iyo aafadiisa naga hayo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh